Dadka qaar kaamirooyinka ammaanka ee lagu xiro wadooyinka iyo goobaha ganacsiga waxay u arkaan inay xadgudub ku tahay arrimahooda gaarka ah, laakiin tan xaqiiqada ah waxay tahay in kaamirooyinka ammaanka ay ka qayb qaataan xalinta faldambiyeedyo aad u badan. Warbixintan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa muuqaallo ka kooban 5 oo daqiiqadihii ugu dambeeyay noloshooda ay duubeen kaamirooyinka ammaanka, kuwaasoo loo dilay qaabab kala duwan oo aad u foolxun. Balse intaan u gudagalin faahfaahinta, asxaabta sharafta leh ee halkan ku xiran, waxaan idinka codsanaynaa inaad like saartaan muuqaalka, kuna sii share garaysaan baraha bulshada si uu meel dheer u gaaro dadkeena Soomaaliyeedna, gaar ahaan kuwa ku nool dalka, ay u fahmaan faa'iidooyinka ay leeyihiin kaamirooyinka ammaanka. Dibanaha koowaad ee aan ka hadli doono waa Grace Molen. Waxa ku dhacay gabadhan waa tusaalaha ugu wanaagsan ee loo soo qaadan karo faa'iidooyinka kaamirooyinka ammaanka. Ma isweydiisay khatarta ay leedahay marka aad kalsoonidaada oo dhan aad siisid qof aadan si fiican u aqoon waxa uu yahay, aadna ka baratay baraha bulshada ama baararka lagu caweeyo. Grace waxay internetka gaar ahaan baraha bulshada ku kulanto ka baratay nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo JC Kimson. Intaas kadib, Grace waxay si fudud durbadiiba kalsoonideeda siisay JC. Kulankoodii koowaad wuxuu ka dhacay meel maqaayad ah. Isla maqaayadda ayayna isku afkarteen in hotel meesha ka dhawaa ay qol ka ijaartaan saacado kooban. Markii ay casheeyeen kadibna way is soo raaceen, waxayna soo aadeen dhanka hotelka. Sida aad sawirkan ka arki kartaan, waxa uu muujinayaa iyagoo ka soo baxaya wiishka siina galaya qolka ay ijaarteen. Laakiin arrinta layaab kale waxay noqotay in JC markii uu qolka ka soo baxay uuna soo galay gudaha wiishka, muuqaalada ay kaamirooyinka ka qaadeen ay muujinayaan in uu kaligiis yahay. Grace-na aysan la socon markaan, balse Grace iyadoo meyd ah oo uu soo jarjaray waxay ku dhex jirtaa boorsooyinka uu wato. Kadib raadin dheer ayna ka soo wareegtay 1 isbuuc, waxaa meydkeeda laga helay wadada laamiga ah ee xeebta magaalada Oakland ee dalka Mareykanka. Waxayna maxkamadda Oakland JC ku riday xukun xabsi daa'im ah. Faldambiyeedka xigana wuxuu ka dhacay magaalada Exeter ee dalka Ingiriiska. Qofkan aan calaamada basaliga ah saarnay waa gabadha dhibanaha noqon doonta. Waxay ka soo laabatay magaalada waa xilli habeen ah. Waxay ku sii socotaa hoygeeda. Waxay ku lugeynaysaa wado cidla ah. Qofka ka dambeeyana ee daba socda waa ninka dhibaateyn doona, waxaana lagu magacaabaa Lasa Mangori. Daqiiqado badan ayuu daba socday gabadha ilaa markii dambe uu gacanta ku dhigo. Sida aad ka arki kartaan sawirkan, waa isagoo si xoog ah labadiis gacmood ugu haya kuna qasbaya inay u raacdo meesha uu ku gowrici doono kuna dili doono. Muuqaalada xiga ee ay kaamirooyinka duubi doonaan waa subaxii xigay ee habeenkaas. Waxa uu ka soo baxayaa qolkii uu ku dilay gabadha. Boorsada isboortiga ah ee buluuga ah waxa uu ku wataa meydka Lauren oo uu soo jarjaray. Midda naxdinta leh waxay tahay in uu 7 qaybood u jarjaray jirkeeda. Dibanaha saddexaad ee ay kaamirooyinka ammaanka duubeen waa Colleen Rester. Waa macallimad dhigta maadada xisaabta, waana 42 jir. Waxay si gaar ah maadada xisaabta ugu dhigi jirtay ardayda aadka ugu liidata maadadan ee ka soo dhacay imtixaanada dugsiga sare. Maalin ka mid ah maalmaha, xilli ay dersiga xisaabta siinaysay ardaydeeda, waxay ka soo baxday fasalka si ay suuliga u aado. Balse mid ka mid ah ardaydeeda oo sida aad sawirka ka arki kartaan wata jaakad buluug ah ayaa ka soo daba baxay. Waxaana lagu magacaabaa Philip Tishi Scholl. Wuxuuna u raacay dhankaas iyo musqusha. Wuxuu dareemay in meesha ay kaamirooyin ku xiran yihiin, wuxuuna bilaabay in uu wejigiisa qariyo. Markii uu gaaray musqusha ay macallimadiisa ku jirtay, wuxuu bilaabay in uu gacmaha gloves gashto, wejigana maaskaro ku xirto si aan loo aqoon una fuliyo dilka macallimadiisa Colleen. Sida aad sawirkan ka arki kartaan, markan waa isagoo hadba dhinac u cararaya dhismaha iskuulka. Sawirkaanna waa isagoo jiidaya sanduuq weyn, waxaana ku dhex jira meydka macallimadiisa Colleen. Markii uu ka soo farxashay dilka macallimadiisa, sida sawirkan ka muuqata, waxa uu iska bedelay labiskii hore, wuxuuna xirtay funaanad cad. Sawirkan kalena waa isagoo banaanka u soo baxay, jiidayana sanduuqa uu ku soo riday meydka macallimadiisa iyo xisaabta. Kanika Jenkins. Faldambiyeedkan wuxuu ka dhacay hotel ku yaala magaalada Chicago, gaar ahaan Illinois. Muuqaalkan waxaa ka muuqanaysa haweeney lagu magacaabo Kanika Jenkins oo hadba dhinac u socota gudaha hotelka. Sida muuqata, aad ayay u cabsan tahay, wayna wareersan tahay. Laakiin xaaladdu way sii xumaanaysaa marka Janika ay soo gaarto kushiinka, maxaa yeelay waxay garan weynaysaa halka uu ku yaalo albaabkii ay ka bixi lahayd. Halkaas ayaana markii dambe meydkeeda laga heli doonaa iyadoo ku jirta fridge halkaas yiilay kadib markii la weysanaa muddo 24 saacadood ah. Laakiin ma jirto qof yaqaana ilaa iyo hadda sida uu faldambiyeedkan u dhacay.
dhacdada ama faldambiyeedka shanaad ee ugu dambaysa muuqaalkeena waa haweeney lagu magacaabo Elise Lam. waxaa macquul ah in qaar idin ka mid ah ay horay u maqleen qisada la yaabka leh ee haweeneydan. waxay ahayd dhacdo la yaab leh oo ilaa iyo hadda fasir loo la'yahay. waxay ka dhacday hotel lagu magacaabo Cecil. kaamirooyinka ku xiran wiishka hotelka ayaa duubay Elise Lam oo soo galaysa wiishka kadibna taabanaysa nambarka ay doonaysay in ay ku degto, balse albaabka wiishka ma xirmaayo. intaas kadib waxay u baxaysaa banaanka sida iyadoo u muuqata inay iska ilaalinayso qof daba socday doonayna inuu dhibaateeyo. haddana dib ayay ugu soo laabanaysaa wiishka mar kale ayayna taabanaysaa nambarka ay doonaysay inay ku degto, balse weli albaabka wiishka ma xirmaayo. waxay sidaas ahaataba markii dambe banaanka ayay u baxaysaa, waxayna sida muuqata la hadlaysaa iyadoo gacmaha taagaysa, walwalna uu ka muuqdo qof aysan kaamiradu qabanayn. markii dambena waxaa meydkeeda laga helay baraag ku taala hoteelka.